assalaamu calaykum. Ummad walba oo dunida soo marta waxa uu Alle u soo diri jiray nabi, waxaana jira ummado badan oo beeniyay nabiyadooda, Allana wuu halaagi jiray ummadahaasi. Kuwaasi waxaa ka mid ah asxaabul ahqaaf, waana ummadii labaad ee xumaan dunida ku samaysa kadib duufaantii lagu halaagay ummadii nabi nuux calayhi salaam. waana qoom kibir badan oo nagabood falayaal ah, mana lagu abuurin dunidani qoom sidooda oo kale u xoog badan. Alle waxa uu u soo diray rasuul si uu ugu yeero caabudida Alle oo kaliya iyo in ay ka tagaan caabudista sanamyada. waa ay beeniyeen Alle waxa uu ku soo dejiyay nooc walba oo cadaab ah. haddaba waa kuma asxaabul ahqaaf, kuwaasoo suurad dhan lagu magacaabay, maxaana loogu bixiyay magacan, maxayna ku sameeyeen nabigooda ilaa uu Alle ka halaagay. ku soo dhawaada qisadooda. asxaabu ahqaaf waxa ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee ka mid ahaa dadka dega jasiiradda carab oona ku noolaa dhulkaasi kadib duufaantii nabi nuux. reer ahqaaf waxay ahaayeen qoom aad u xoog weyn, jirkooda iyo awooddooduna aad ayay u weyneed. waxa ayna ku faani jireen dhismayaasha dhaadheer iyo awoodda ay ku maamuli jireen dhulka ay ku noolaayeen. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu u soo diray nebi Huud in uu toosiyo dadkani, kana wacdiyo in ay ka fogaadaan caabudida sanamyada oo ay u caabudaan Alle oo kaliya. nebi Huud wuxuu ku celceliyay fariinta uu Alle u soo diray uuna u soo dhiibay oo ahayd in ay u toobad keenaan Alle oona caabudaan asxaabul ahqaaf. laakiin inta badan reer ahqaaf waa ay diideen in ay nebi Huud hadalkiisa yeelaan, wayna ku gacan seereen fariintiisa. waxa ay ku faani jireen awooddooda iyo hantidooda, iyagoo u maleynayay in ay xukunka naftooda iyaga haaya. waxayna ku celcelin jireen yaa naga xoog badan anaga, iyagoo ilaabay in uu Alle yahay kan ugu awoodda badan ee koonkani maamula. reer ahqaaf markii ay sii wadeen caasinimadooda iyo falalkooda xunxunaa, Alle waxa uu ku soo dejiyay ciqaab. cirka ayay waxa ay ka arkeen daruuro, Allana waxa uu ku soo dejiyay markaasi ciqaab. ayagiina waxa ay u maleynayeen in daruurtaasi tahay roob, balse daruurtaasi waxa ay ahayd duufaan dabeel wadata. waxa ayna socotay muddo 7 maalmood iyo 8 habeen ah, si joogto ahna waa ay u socotay oo deegaankoodii iyo hantidoodii ayay burburisay. waxa ayna dishay dadkii iyo xoolihii. waxaana la sheegay in aanay cidna ka badbaadin dhibaatadaasi marka laga reebo nebi Huud iyo inta rumaysay oo kaliya. sidaas daraaddeeda dadka reer ahqaaf waxa ay noqdeen cashar taariikhi ah oo loogu talagalay dhammaan qoomamkii dambe ee dunida ku noolaa, iyadoo muujinaysa qisadani sida uu Ilaahay u ciqaabi karo kuwa gaalooba ee kibir iyo caasinimo la yimaada. waxaana xusid mudan in sheekadani muhiimad gaar ah ay u leedahay dhammaan muslimiinta, maadaama ay tahay mid ku jirta qur'aanka kariimka oo uu Ilaahay ku sheegay qisadani nebi Huud iyo dadkiisii reer ahqaaf. suuradda ahqaaf, sheekada asxaabul ahqaaf waxay sidoo kale ina xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay in loo toobad keeno Alle had iyo jeer, oona laga cabsado Alle oo kaliya, si aan loo noqon kuwii hore oo kale oo kibirka iyo caasinimadooda darteeda lagu halaagay. waxaadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani, waxaana inoo xiga muuqaalkan kan xigo hadduu Alle idmo. haddii aad ilowdayna inaad kanaalka subscribe saarto, fadlan isku day in aad hadda subscribe saarto.